fadlan subscribe saar hana ilaawin inaad gambaleelka furato. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتم حين لبدا يدونا فايدين وقرأوا لي أنا وحكوا سيد رادد سيد أغنية خرو أنت بدو حكس ميسين بيو وحنو كبدا فيتامين دورة وكميديها فيتامين A فيتامين B فيتامين C فوليك أسيد بوتاسيوم هذا هو ما هي أنا وحيابا أنا وين فائدة ولا يخرو لمبرك كوال وحو حوجيا دفاع جركة sababtoo ah waxaa ku jiro vitamin A iyo waxyaabo kale oo ka qayb qaadanaya ka hortagga waxyaabaha dhibaateeya jirkeena. Lambarka labaad wuxuu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay haweenka qaba uurka sababtoo ah waxaa ku jiro vitamino loo yaqaan folic acid oo lagama maarmaan u ah haweeneyda uurka leh khaasatan 3 bil ee hore ee uurka. haddii aysan qaadan haweeneyda uurka leh waxaa ku imaan kara saameyn xagga ilmaha dhalan doono gaar ahaan xangulaha. Lambarka saddexaad wuxuu aad iyo aad u wanaagsan yahay dadka ka jiran wadnaha iyo keliyaha. qarahu waxaa ku jiro biyo badan iyo macdin badan sida macdanta potassiumka iyo kuwa kale wuxuuna dejiyaa dhiigga wuxuuna ka hortagaa cudurrada xididaha dhiigga iyo wadnaha. si la mid ah wuxuu u jijibiyaa dhagaxa keliyaha daawo ayuuna u yahay infectionka keliyaha iyo kaadi mareenka. Lambarka afraad wuxuu u roon yahay xanuunka murqaha. cilmi baaris badan ayaa lagu ogaaday in qaruhu uu yareeyo xanuunka murqaha sababtoo ah wuxuu badiyaa dhiigga soo gaaraya murqaha. sidoo kale waxaa laga helaa vitamin B6 oo ka kaalmeynaya jirka inuu awoodiisa dib u soo ceshito firfircooni dheeraadna helo. Lambarka shanaad waa awood xoojiye dabiici ah ee ragnimada. waxaa ku jiro maadooyin balaarinaya xididaha dhiigga taasoo badinaysa dhiigga gaaraya xubnaha jirka kaasoo ka mid yihiin xubinta taranka ragga kana kaalmeynaysa awoodda ragnimada. Lambarka lixaad waxa uu ka hortagaa kansarka. qaraha waxaa ku jiro maadooyin la yaqaano lycopene oo ka hortagta kansarka gaar ahaan kansarka prostataha naasaha iyo kuwo kale oo badan.